iyadoo hadallada ka soo baxay gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Injineer Cabdirasaaq Maxamed Nuur Injineer Nuume ay intooda badan ahaayeen kuwa uu diiradda ku saarayay la dagaalanka gaajada isagoona intaa ku daray in la dagaalanka gaajada uu qayb weyn ka yahay amni ku soo celinta dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sidoo weyn aan qabno waxa waaye inaan maxaan Ilaahay yiraahdo wax qabad qabta ahay bulshada hoose inaan qabno. Horay waxaan u sheegay shalay aan ka qaban doono wax weyn تعاليد الصبورين إلا يرى صبور لماذا كجرت وآدي وين ما أنا أمرك لقى هذا الصبور لماذا كل يحب يده وأركان متكرية كل أبكين ما وحكوي حاول قبل من هؤلاء وحنا الله قطعي إن جو برشة إلى جانا دتك صبور أصل حاف يعني الله دوب لك دوب بهاي نفس الكيس ما دروه جرا أنا يقول ما دروه حاول أنا كريه قريب قرية واحد كسعود تي لحمامة أي أنا قرمنا هنا واحد قبنا تي برشة وقف عندها. sidoo kale mar wax laga weydiiyay hadii uu wax isbedel ku sameeyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo in kale ayaa gudoomiyuhu waxa uu arrinkan kaga jawaabay sidan haddaan ka hadlo dhinaca gudoomiyaasha degmooyinka hadii Ilaahay yaraado xaajid weyn ayaa yeelan doona hadii Ilaahay yaraado ninkii loo arkay wuxuu ahaa inuu ماشي هاي الرواسي هاي هذه ولا هذا نيجي لو أركان معه إنه ماشي كذا إنه هاي ما نيجي لو هبون ولا كيس أياكم هو عامل دونا inta lagu guda jiray war-saxaafadeedkii uu saxaafadda u qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir Injineer Nuume ayaa waxa uu sidoo kale inooga waramay taariikh nololeedkiisa iyo khibradiisa shaqo. taariikh nololeedkiisa aan ka hadlo anigu waxaan ahay nin ku barbaaray waxaan ku bartay waxaan ka baxay kulliyadda injineeriya sanadkii uu ahaa 1988 waxaan nasiib u yeeshay aniga oo saaxiib ah inaan ku hadlo kulliyadda macallin aan ka noqdo markaali aan ka noqdo isla markii waxaan ku guulaystay markaan shaqaynayay muddo hal sano inaan aado waxbarashada waxaan waxbarasho u aaday jaamacadda la yidhaahdo jaamacadda Qaadaba ee ku taalo dalka Talyaaniga takhasus waxaan soo bartay inkastoo aan u bartay aniga la yidhaahdo civil engineering oo BSK ahaa takhasus waxaan soo bartay oo ah dhismaha muxuu ahaay dekedaha iyo waxyaalaha maritime construction la yidhaahdo iyo laan weyn loo yaqaano geotechnics oo ah barashada aasaasiyada dhan waxyaalahaas oo dhan hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Injineer Cabdirasaaq Maxamed Nuur oo ah inuu xoog saari doono la dagaalanka gaajada ayaa la ogeyn sidii ay uga hergeli doonto dalkeena Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.